magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe waxaa ka dhacay kulan aad u ballaaran oo lagu caleema saaraya nabadoon Soomaaliyeed kaas oo dadkii ka soo qayb galay dhammaantoodba ay ku dhiirigeliyeen nabadoonka inuu kaalin mugla ka qaato guud ahaanba arrimaha hor yaalla iyadoo dhinaca kalena isaga laftiisa uu codsaday in lala shaqeeyo si loo noqdo kuwo iyagu dhan walba horumarka gaara wariyaheena Ibraahim Cali Nuur ayaa warbixintan jowhar ka soo diray. xafladan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa lagu caleema saaray nabadoonka guud ee beesha Mubleen Cismaan ee degmada Jowhar waxaana xafladda ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada reer Jowhar ee qaar ka mid ah ugaasyada beelaha Soomaaliyeed waxa ugu horreyn goobta ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii waxgaradka kulanka ka soo qayb galay maanta nasiib ay u yeesheen inay ma aragtaa Jowhar noo yimaadaano nimankaana ma aragtaa ay nala qaadaano haddii aan nahay beesha Mubleen gaar ahaan degmada Jowhar in aan u soo xulanay in uu nabadoon noo noqdo iyo nabadoon ku xigeen nabadoon Buneste iyo nabadoon ku xigeenka oo ah Ciise Faarax Iido waxaa farxad weyn noo ah inaan maanta u joogno caleema saarka duubka beesha Mubleen Buneste isla wuxuu ka ahaa beesha Mubleen nabadoon maantana waxaan u xalaaleynay nabadoonnimadiisa waxqabadkiisana waan ogeyn dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan ka codsanayaa duubabka kale ee beelaha kale inay garab istaagaan walaalkeen nabadoonka iyo nabadoonku xigeenka waxaan ballan qaadaynaa inaan la shaqeyno wax alla wixii oo dhaqan oo soo food saaro oo gobolka ka jiro odayaalkaas hadda nabadoonka iyo nabadoonku xigeenka inaan la shaqeyno aan ballan qaadaynaa haddii aan nahay odayaalkii gobolka Shabeellaha Dhexe joogay. dhinaca kale waxa aygana goobta ka hadlay isla markaana dardaaran u jeediyay nabadoonka maanta la caleema saaray qaar ka mid ah ugaasyada beelaha Soomaaliyeed nasiibka aad duubabkiini mudulood inay nigala soo qayb galaan aad ku hesheen ayaa leedihiin cawtadiina mid yar ma aha beesha Mubleen Cismaanna markii ugu horeysay ee nabadoon duubata ma aha adinkana ma tihiin kii ugu horeeyay kuwii ugu dambeeyayna ma tihiin waxaan kaloo dardaarma qofkii taaka la magacaabo dhudhun ka dhigtaa isku ekeeya deegaankan laga doortay haddii Jowhar laga doortay hadii balcadaan ku darsaha balcadii laga doortay Jowhar ku darsaha meeshii laga duubay dhaqankeedii ku ekaaw marka nabadoonkana waxa laga rabaa nin xun oo arka fiiri hadaa tiraad meesha waxa aragtay laba nin oo mudulo isku dilayso ina kala qabta laga rabaa hadaa tiraad Mubleen ma iga wada hadaa tiraad nabadoon ma tii nabadoonka waxa la rabaa waxa la dhaqa inuu dhinaciisa ka dhaw xaaja meel ninka qabanayso warkaan ila soo dhaw kule iga wada cidayna ma hadaa tiraad ebrabata meesha waa ku dhamaatay nabadoon ma tii nabadoonka waxa la rabaa meel kasta inuu galo nabadoon Soomaaliyeedaatiin waxaasna goobta ka hadlay nabadoonka maanta la caleema saaray ee beesha Mubleen Cismaan nabadoon Axmed Ciimo Hadaafo Buneste aad baa u mahadsantihiin hadda kadibna waa isla shaqayn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo sharafta iyo wanaagga aad igu soo dhaweyseen aad baan idinka mahadcelinaynaa waana salaamantiin boqolkiiba boqol aadaan salaamantiin wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray isla markaana hadal kooban goobta ka jeediyay ugaaska guud ee beesha Mubleen Cismaan ugaas Cabdullaahi ugaas Saalax ugaas Cali sidoo kalena ah afhayeenka duubabka dhaqanka beelaha mudulood gogosha aadka u qiimaha badan ee la soo agaasimay sida quruxda badan loo soo diyaariyay waxaan rabaa inaad maartay iguna duceysaan una mahadcelisiin inay yihiin gogoshan dhaqan dadka soo abaabulay dhalinyaro maanta inay yihiin dad dhalinyaro ah oo runtii fahmay baahida ka jirta beeshooda una istaagay inay dhaqanka maanta odayaasha ay sameynayaan ay doorkooda lixaadka lahay ka qaateen marka waxaan leeyahay Ilaahay idinka ajir siiyo wanaagga aad samayseen annagana waa ku faraxsanahay inaan maanta arkayno ubadkeenni oo u diyaar ah inay beeshooda iyo dhaqankooda iyo nidaamkooda toosiyaan waana ku mahadsantihiin. Ibraahim Cali Nuur TV Universal Jowhar.